السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة وان هو inaad maalin isweydiisay seen guushan gaari karaa ama seen yoolkan uga dhabayn karaa laakiinse weli ma isweydiisay maxaa ay tahay qasab inaan hadda joojiyo si aan yoolkan uga dhabeeyo. haddii ay jawaabtaadu tahay maya, muuqaalkeenan ayaan kugula wadaagi doonaa 7 shay ay qasab tahay hadda inaad joojiso si aad guusha u hanato amaba yoolka aad doonayso inaad gaadho. magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkanina waa Salgaadh Media. nagu soo biiro ka mid noqo baaweynta nagu taxan. qodobka koowaad ee ay tahay inaad joojiso waa jooji cudurdaarka. ha odhan markasta yoolkan ma gaari karo, waqti ma haysto iyo erayo la mid ah. kuwaasi waa waxyaabaad qasab hadda ay tahay inaad joojiso haddiiba aad rabto inaad guul gaadho amaba aad shay ka yool dhaliso amaba aad guul ka gaadhay. qodobka labaad ee qasabka tahay inaad joojiso waa jooji farxad gelinta dadka kale. marna ha ka fikirin si aan yoolkan u gaadho hebel muxuu doonayaa, saaxiibkay muxuu ku farxayaa, adiga maxaa kaa galay daawada dadka kale. laakiinse adigu ku soco uun dowgaaga oo dadka kale ha farxad gelinin. marnana ha ka fikirin waxa iyaga u dantaa ee mar walba ka fikir waxa adiga kuu dantaa. qodobka saddexaad, jooji murukarka xad dhaafka ah. markastoo aad muddo dheer ka fikirto waxaana doonaysa inaad guul ka gaadho ama aad marar badan fikirto oo markasta ay waqti kaa lumayo, taasina waxay tahay inaad hadda qasab joojiso. maxaa yeelay markastood waxaan aad uga sii fikirto waxa kuu soo baxaysa oo Soomaalidu waxay tidhaahdaa biyahaba haddaa lasii fiiriyo madow yar ayaa laga dhex helaaye. adiguna waxyaabo shaygan ka hor istaajinaya haddaad u fiirfiirsato ayaad ka helaysaa. jooji fikirka xad dhaafka ah. qodobka afraad, ha ka cabsan fashilka. daawada guusha laftarkeega ayaaba ah fashilo isku tegtegay unbaaba guul dhale. marnaba ha ka cabsanin inaad marka horeysa fashilato, laakiinse ka fikirun yoolkaasi inta uu ku jiro iyo inta xad ku gaari karto. qodobka shanaad ay qasabka tahay inaad hadda joojiso waa waqti hore ha noolaan amaba ha ka fikirin taariikhi hore oo ha ku mashquulin. si aad hawsha hadda aad u qabato ha ka fikirin wixii hore, maxaa yeelay waaqica hadda uma baahna inaa kii hore laga fikiro, maxaa yeelay kaasi laga yaabaa inuu lahaa kacabku fara badan. tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad arday tahay amaba aad kaalin fiican waxbarashadaada ka keento, ha ka fikirin imtixaankii hore wixii kugu adkaaday ee aad ku dhici gaadhay amaba aad hoos ku yar martay, laakiinse ka fikirkan hadda sideen uga guul gaari karaa. qodobka lixaad ee ay qasabka tahay inaad hadda joojiso waa naftaada hoos u dhigin. markasta daawade ha is odhanin dadka kale waad ka dambaysaa, adiga u hooseeya iyo erayo la mid ah, laakiinse markasta lahan sare naftaada. qodobka toddobaad ama ugu dambeeya ee ay qasabka tahay inaad hadda joojiso waa jooji cabashada oo xalka raadi. markasta ha cabanin oo ha ka murugoonin dadka, laakiinse adiga ku dhaqaaq xalka aad doonayso. daawade haddii ay dhibaato kusoo food saarto amaba ay waxyaabo ku yimaadaan, ha ka fikirin hawshaasi amaba ha ka cabanin oo ha odhan sidan maxay u dhacaysaa.